kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba daawadayaal goob walbood naga daawan haysaan halkani waa Cable TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Tani Garissa kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku wareysanayno xildhibaanad golaha deegaanka ka tirsan Khadra Imaan Sigad soo dhawow Marwo waxaan hadaba wareysigeena ku jeexjeexi doonaa intii aan ku guda jirno hadal haynihii ka jiray deegaanka muddooyinka ugu dambeeyay kuwaasi oo kamid ahaayeen carqaladii ka dhalatay suuqa Qoraxay ee la isku khilaafay isu soo baxyaal halkaas lagu soo qaban lahaa kadib markii la arkay warqad ka imaatay dawladda sare taasi oo ay ku qornayd in la joojiyo dhammaan banaanbaxyadaasi la sameyn lahaa laakiin se weli madaxdu si socdaal hayay ku gaadheen madaxdu waxa ay ku kala aragti duwan yihiin dhismaha suuqaas lagu sameyn ee barasaabka ismaamulka Garissa uu sheegay in hadii ay bulshada ka imaato la dhisayo Marwo Khadra soo dhawow bal waxaad nooga warantaa idinka golahii deegaanka hadaad tihiin baarlamaanka deegaanka matalahayay maxaa arintaaseed u aragtiin mahadsan Hashim soo idin sheegay magacayga Mushima Khadra Imaan Sigad aniga waxaan ahay gabar oo kamid ah baarlamaanka goboleedka Garissa gabdhaha waan ku badanahay gabdhaha waxaan matalnaa bilcaanta oo Garissa booday iyo banaani inta u dhaxayso tii dumar anaga matalnaa Garissa County baarlamaanka waxaan u fadhinaa wixii talo iyo tusaale oo haweenka dan ugu jirto inaan ma artay dawladda aan wax u sheegno oo ka waalino oo wixii ay ku qaldayeen aan ka saxno wixii bilcaanta dan ugu jirtana aan ka marno haddaan gadaal ugu soo laabto arrimahan oo suuqa lagu sheegayo horta bilcaan ku ganacsataa rag uma ganacsado waxa dib ku qabo waa haween haddii laga faa'iido waa haweenka ilmaha iskuulka iyaga fiiska ka baxsan sida lagu sheegay laakiin mid jirto waxa way walaal maxaa ku qasbe raggan waxaan macna lahayn inay ku doodaan oo faa'iidana ugu jirin oo haweeneyda suuqleyda ama rafaadsan qorraxda hayso loo dhibay magaca qorraxay gadaal ugu noqon muxuu ka dhigan yahay waa qorrax qof fadhiyo Soomaa marka maxaa ku kalifay bilcaanta qorraxda fadhido farsamadii loo sameeyay in qorraxda loo kicin la maxaa loo diiday in loo hortaagan idinka golihii deegaanka maadaama tihiin oo sharci hindiseed aad ka shaqaysiin muhiimtisteen sharci la xiriiriyo mooshin la xiriiray in isbedel suuqa laga sameeyo mise sameyseen xog ururin aad la yeelateen dadka deegaanka iyo suuqa inay raali ka yihiin in ralitaan lagu sameeyo waa hagaag anaga dumarka haddaan nahay waxaan garab u nahay oo nala shaqeynaa baarlamaanka guddi uu qabaa guddiga waxaa way xagga beecshirada oo trade committee-da qofka chair ka waa haweeney maama mushima asla dhibaaga ayaa ka ejiya marka waxay lagu qasabtay guddiga dastuur fara badan oo 4 jeer oo biilsan marinay oo haweenka dan ugu jirto oo beecshirada oo ugu tabiinaynayo maamooyinka Garissa County marka sharciga waxaan la tiigsanaa wixii maamada danyarowda macaanoleyda wixii dan ugu jiro sharciga daada dib loogu noqdo wixii horaan lagu maamul jiray meesha maanta waxaan dhignay waa kala wanaagsan yahay beecshira waxaan u keenay lacag kale oo fasaad dawladda inay bixiso countiga oo na ribana aan qabin oo clean iska aan waxba qabin bilcaanta inay qaadato gurbahooda soo qortaan qaataan ku soo shaqaystaan soo celiyaan marka anaga haweeney hadaan nahay baarlamaanka waan ka habeynay waan u dadaalnay sharci baan dejinay waan marinay waxooda waa hagaajin hatta beecshira lacagta u diyaarin bari waa launching revolving fund marka mid taala waxa way qorrixi aan rabo inaan ka dhawaajiyo bulshada inaan u sheego aan rabo qorrixi arinteeda muran kuma jiro maamooyinka waxaa dan ugu jirta in meesha laga kiciyo meel fiican la geeyo waan ku tashanay stakeholders way la fariisteen maamooyinka dhan baan la kulunay committee bay qabaan guddiga baan la fariisanay ayaga sheegteen dantooda inay dan ugu jirto geediga ilaa waxay ayaga rabeen qasbay idinka sharciga ma marin kartiin oo ku hirgelay ma yahdaan marisiin anagu waan hirgelinay ku kala cusubna hadaan rabno waan u yeeli karnaa ayaga ay soo codsadaan ku kala cusub haday doonaan inay kii hor aaminsaneen ku kala cusubta waa loo marin karaa laakiin waayo maxaan gadaal ugu noqonaynaa sharciga dib baan horba waa ay cid idinka awood badan ee joojinaysa marka golihii deegaanka konton baad ka tirsantiin cid idinka awood badan hadii ay bulshada raacsantahay joojisa waayo waa hagaag su'aasha way wanaagsan tahay maxaa rabana u sheego bulshada
nin baarlamaanka Gaarisa kamid oo kontonka qof ama haweeney ama wiilasha joogaan waa dad sharaf leh shaqo wanaagsan bayna dadkooda u hayaan laakiin lagama yaabo hal nidaam aan dan ku jirin ama waxa leynay inay meesha dumiiska ruux soo saaro kaligi oo waxa leyn karo mana dhici doonto laakiin waxaan aan ku sheego waraaqda la sheegay oo la dhan Nairobi ka imaatay waraaqda hadda si la cadeynta la helay waa fake waxba kama jiro waraaq la soo been abuuray oo dawladda lagu cabsiinayo oo lagu cabsi gelinayo maamooyinka xaashibata la wax baakan ee wahay laakiin waxaan ku sheegay bulshadana aan u sheegay Garissa County waa dawlad madax banaan dastuurka 2010 constitution ay ku qoran devolution full powers is dawlad goboleedka awood buuxda oo miis ay haysta dawladda cid fargelin karto malo shaqadeeda la fargelin karin maamulkeeda dastuurkeeda nidaamkeeda uu dejisan soo wax la soo fargelin karo ma jiro waxaag marka golihii deegaanka hadaad tihiin waxaad sameynaysiin go'aano aad kaga talaabsanaysaan si ay u hirgasho dhismahaasi haddaan gadaal ugu noqdo taas waxaan kuu sheegay oona kuu xaqiijinayaa dawladda Garissa County gadaal uma noqonayso haddaad sugi adin bahdaal gadaal uma noqonayna meesha waa la dhisi ama ha la jeclaado ama la diido walaalkay abookay macaan oo nin madax oo sharaf leh majority leader waa nin oday waa nin sharaf agtayna ka joogo waa nin qiimo agtayna ka joogo waa nin madax aan ku xisaabtamayna nambarka 3aad way Garissa laakiin ma doonayna wax sharaf darro asaga u soo jiidi annagana suxmadayna dhimanay ana waxaan leeyahay niyo wax fursad oo qasid oo muhiim miya u haysaa maamooyin oo badalaad macnaha u daayna maxaa muhiim u haysaa oo kale hadaan hayno somo fadlan ha isku ceebeyn embarrassment ka darad arkayna faa'iido kuma jirto dhalinyaro isbursanaysin waa lagu dhagax tuura waxa danku uma jirto fadlan dawladda banaanka ka mara shaqadeeda haysataa nidaam iyo dawlad iyo awood buuxdana way haysataa su'aasha marka la ugu celiyo hirgelinta ismaamulka Garissa ma awooda hirgelinta maxaa yeelay hawlo fara badan oo ismaamulka Garissa ay ku dhawaaqeen ba jirtay oo qabiyo oo aan dhaqaaqin ma awooda marka ismaamulka Garissa mid awooda lama tahay inay hirgeliso arrimaha oo ay ka dhabayso arrimaha qorxaysan ku sheegay dawladda arinteeda way diyaarisay waayo dadweynaha waa cabanaan oo soo codsadeen county-ga waxay ku tilaabo qaadi dadweynaheeda wuxuu rabo adiga shacabka taasoo baxdo tirsadan ma rabin lagu ma qasbay hadday iyaga codsadaan rabaan in meesha qorraxda laga qaado mataatuuga breega soo gooy maamooyinka dusha ka fuuli de anaga diyaar ma nihin maamooyinka in meesha ku dhamaadaan marka dawlad awood buuxda haysata maadaama dadkeeda uu dabada ka wado oo irar uu leeyahay awood buuxdu haysta mashimay zalzal saacad inuu qornay una hagaag waxaad ku joogtaa baarlamaanka gender haweeney baa tahay loo soo xulay amuuraha haweenka waxaa jirta haweeney dhammaan hal laga soo doorto gobolka oo matasho kursiga haweenka ismaamulka Garissa Marwa Canab Subo qoran Canab Subo Guure Canab Subo Guure mid kamid ah deegaanada faafi ayay raashin ku bixinaysay caqabad bay ka tabanhaysay xildhibaanka deegaankaasi garab oo ugu tiin arintaas bal ka war idinku afkaarna caad ka amisantiin arintaas haddaan gadaal ugu laabto arrimihii Mheshimiwa Canab Subo Guure waa gabadh Marwada Garissa County Mama County ku magac dheer waa gabar walaashayna waa gabar ciida waa sharaf agtaan ka joogta waa xushmeeyna waan qadirina ayada Garissa County oo dhan loo doortay haweeney matalaysa baarlamaanka sare ragga waxa laga soo doortay constituency laakiin ayada haweeney way soo markay baarlamaanka fadhido haween oo dhan ay u fadhidaa macal aniga kula hadlay booday banaan inta u dhaxaysa yaa matalayna anagoo bilcaan badan baarlamaanka goboleedka u fadhina ayadana national government ay noo fadhidaa laakiin anabay maxaa rabaa inaan u baaqo siyaasadda meel xun ha ka bilaabin Mheshimiwa Canab meel xun ha ka bilaabin tafadal waayo siyaasadda meesha xun laga bilaabi maxay tahay maxaa yeelay Marwa Canab Subo waxay sheegtay in caqabado kala kulantay in dadku u adeegto caqabadaasna ay kaga imaatay xildhibaanka degmada Faafi Cabdikariim Cusmaan Rati Mheshimiwa Canab Subo shaqada ay qaban hayso waxay ku hadlaysay oo ku xumaysay shaqa hadaad qabanayso adi women rep baa tahay shaqadaada ku ekow inaad fargeliso kin kale meel laga soo doorto ma aha aniga markaan ku leeyahay Garissa County Assembly baan joogaa women representative aan yahay meeshaan fadhiyo haween oo dhan way I cannot interfere from my word ka ani aan ka imaado wiilkii laga soo doortay inaan shaqadiisa fargeliyo mamnuuc way dastuurka hata ma dhigay Kenya nidaam baan ku shaqeynaa lama ogolo xadgudub inaad xadgudubto lama ogolo hadii ay Cabdikariin Cusmaan oo ayada qalad ka galay ama godob ka galay oo raashinki
la dhahay faafi ka qaad ayadana faafiga ay ka imaatay kaba soo qaad laakiin baarlamaani baa jira faafi loo soo doortay marka ayada ma awoodo inay qaado rusqadna ma laho ka soo qaad way qaaday haday qaad Cabdikariim wuu ka reebta soo wuu ila dagaalay tiri we don't know waxa hubna ma laha haduu la dagaalay kuba kale maxay u qaad ways meeqa county way sub counties way gaaris way badan tahay tii Cabdikariim dacudi kuba sub counties ka kale waayo maxaa ku qasbay carab inay qaadan maxay u qaadi ways midaa waa qalad 1 2 مشيما أنا والله سبحان ويا about your master روح أكو صور درس ذي أو ماذا حكوا أو ولا صور درس ذي ولا لها عائد ولا قرر يا صور درس ذي مشيما أنا بسوبه هذا برد على صور درس ديار بوسية شوبة هذا دقيقة عتك Cabdikariim عار هشيم كي سقاب بالو Cabdikariim هو خلاص عدين ديار الشوبة هذا استعملت هذا برباصر وسكلها مع عدين بدو قدي صور لسه ما كلمة كره ديار أنا بريه بدتي Cabdikariim عنده أكاونت كوميشن هشيم كي سلا qaad asoo magaalada saakin ku waa arin weyn oo qalad anaga raali ka midin Cabdikariim maanta dul marwada gaaris uu gafo garab baan siinaa in carab garab istaag raali ka mi carab la dul laakiin mana rabo gaaris bilcaanka in la caayo diyaar waxaan dib kugu celinayaa in horumarka la isku kaashado oo gaarigii lagu qaaday raashinka aan kugu kaalmeeyo ma waxay tahay in qof kugu diray ma noqonayso diyaaraddu waxay ku sameynaysaa marwada adeeg raashinka diyaaradda lagu ma adeegaynin diyaaradda waxay lagu qaadaa ayada binafsi laakiin raashinka gaarisa si robot baa laga raray marka ayada waxaan rabay aan inay sameeyso inta ka kacdo dageega tagto dadweynaha calaacal oo la tagto Cabdikariim ayso wax ka sheegto waa laga roona waxa ka fiicnaa haduu ku gafay asaga qalad uu sameeyay qalad ugu mas'uul adiga gadaal ugu noqo county commissioner wasiirka sheegaysa wax independent oo madax banaan madagoo mushimaha tahay waxa qaaday tag meesha جرام قتك dadweynaha u gargaar mooyaane dadweyne ana u tagto calaacal oo la tagto heblow baa kan heblow baa cayn heblow baa saan heblow waa la xisaabtami kuma jirto tan kale waxaan raanaa u sheego Mushima Canab Subo she is the women rep of Garissa County I respect her very much but I want to tell her this aan runta raan u sheego Canab ayada Cabdikariim ay la xisaabtamaysa annagana deegaanka county-ga Garissa baarlamaanka joogna ayadaan la xisaabtamayna budgetkeeda every year waa almost 50 to 75 million lacagteeda ayada Canab inay markasta garjamo 250 lagu gad ay gado haami yar 3 kun lagu gad ay gadi waxay qoranaysaa iyada 35000 ay ku soo gado 35 dadweynaha haan yar oo 2500 kun laga ay u geeyni 35 kun way qoran ayada iyo wixii ku agdhawaa oo reerka baan contract ku qaatay anaga maxaan rabaa u sheego haweeneyda Garissa County matalaysa hadaan nahay Garis joogni Mushima Canab miiskan ku soo saaray waan kula xisaabtamay si ilaahay sheeko waayo dadweynaha naftirka qalad way aan ka galaysa waa tahay waxyaabo qaar waxa jira aad gal hayso oo aadan cadeymo mar wana raacinayn waa maxay cadeymaha aad u hayso in arrimahan ay jiraan cadeymaha waxa kamid ah Mushima Canab haday intay fagaare istaagto adiga ay ku dhaado hebel baa wax idhe hebel baa saan idhe cadeyna asaga ay ku hayno waxaad dhahday konton ilaa iyo 75 milyan waxa laga bixiyaa haaba kooban iyo garjamo budgetkaas ayaan u baahanay meeshu maray baa dhahday haamahaas oo la isu geeyay mar uu soo ma noqon hayaan kontonka ilaa gadaaladan ku laabto hadalkaygina fahanto ma ogid maxaan ku dhahay haweeneyda women representative budgetkooda national government baarlamaanka Nairobi sare lacagta loogu talagalay markay u badan tahay waa 75 ilaa 50 milyan every year bay qaataan marka lacagta ayada la soo siinay national government uhuru dawladiisa ay soo dhiibayso looma soo dhiibin ayadana ay jaabka gashato deegaanka Garissa ay keenay haweeneyda Garissa askar ما قرر لكن هدات رجع كومبا نيروبي أنتج إلي سفرت رجع كومبا ما قصوا قدر لبكو شن بقول وانساق يبيني درع بان لا بقول كنت كبحيني وعنكو قرن لبكو شن بقول إلي لبكو قصوا قدام صدق كنكو قرني هامن لبكو شن بقول كبحي صدق شنكم بان قرني بسور تجلس هوان ويقول حساب بسور تجلس لحتى بجت ماشي جايني والله حساب تمام حساب دايما أنا جاي هذا الحساب بريد ورا حشبيني لكن حساب دايجر هوان بجت كاين أكون محل intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeena sidaad codsiga nagu soo ajiibto waad ku mahadsantahay mar kale cable TV ku soo dhawow baan ku leenahay